waxaana wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeena xogta dunida oo aynu daaha kaga rogi doonno ciidamada ruushka oo si buuxda gacanta ugu dhigay gobolka kherson sidoo kalena la wareegay dekad istaraatiiji muhiima oo ku taala badda asof. ruushka oo sheegaya in ay soo rideen ilaa 6 diyaaradood oo nooca bayraktar TB2 ah. waxaan idin haynaa xog iyo macluumaad ku saabsan dagaalada xooggan ee soconaya, maraykanka oo weli shiinaha ku riixaya dagaalka ruushka iyo hanjabaad ay iswedaarsadeen dhinacyadan. barnaamijka daawadayaal waxaad kalood ku daawan doontaan madaxweynaha waddanka Ukraine oo weli diraya fariin adag oo ka dhana ruushka. mar kale daawadayaal soo dhowaada. daawada fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar, sidoo kale fura gambaleelka si aad u noqoto daawadeena ugu horeeya. mahadsanid. aanu ku bilowno. madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu sheegay in ruushka uusan gaarin natiijada laga rabay dagaalkii ay ku qaadeen Ukraine ayna ku waayeen ciidamo badan, isla markaana waxa uu tilmaamay in wadahadallada labada dhinac ay sii socon doonaan maanta. Zelensky oo muuqaal ka sii daayay TV-giisa qaranka waxa uu sheegay in Moscow aanay runta ka sheegin khasaaraha ka soo gaaray Ukraine. waxaa kale oo uu ka hadlay cunaqabateynta reer galbeedka ee ka dhanka ah ruushka, isaga oo sheegay in hadda la diyaarinayo wareeggii afraad ee cunaqabateyntan. isagoo ka hadlaya horumarka wadaxaajoodada, madaxweynaha Ukraine waxa uu yidhi, waxaa la ii sheegay inay si wanaagsan u socdaan, laakiin aan aragno halka ay wax ku dambeyn doonaan. waxa uu sidoo kale tilmaamay inuu la hadlay ra-iisul wasaaraha Israel Naftali Bennett, taas oo qayb ka ah dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu joojinayo dagaalka. dhinaca kalena dowladda ruushka waxa ay ku dhawaaqday inay si buuxda ula wareegtay gacan ku-haynta gobolka Kherson. wakaalada wararka ee ruushka oo soo xiganaysa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Igor ayaa waxa ay maanta shaacisay in ciidamada ruushka ay si buuxda gacanta ugu dhigeen gobolka Kherson oo ku yaala koonfurta waddanka Ukraine. gobolkan oo muddaba lagu dagaalamayay tan iyo markii dagaalada ay bilowdeen, ciidamada ruushkana ay hareereeyeen, ayaa ugu dambeyn dowladda ruushka waxa ay sheegtay inay gacanta ku dhigeen gobolkan, islamarkaana hadda iyagu si buuxda ay u maamulayaan. dadka degan ayaa sheegtay inay kaalmooyin degdega gaarsiin doonaan waa dadkii farakutiriska ahaa ee gobolkaasi ku haray, iyadoo dhinaca kalena ay jirta cabsi xoogan oo ku saabsan in ruushka sidoo kalena gobolkan uu aqoonsado inuu ka madax bannaan yahay Ukraine sidii uu horey ugu aqoonsaday Luhansk iyo Donetsk. waayo gobolkan dadka ku sugan iyagu waxa ay sidoo kale qaarkood doonayaan in ay madax bannaani ka helaan Ukraine oo ay noqdaan gobol gooni u taagan, taasoo hadda laga cabsi qabo in ruushka uu ku dhawaaqo. sidoo kalena ciidamada ruushka gaar ahaan kuwa badda ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen dekadda lagu magacaabo Berdyansk oo ku taala badda Azov. dekedan oo ah mid ganacsi oo muhiim u ahayd Ukraine ayay ciidamada ruushku la wareegeen. muuqaalo lagu baahiyay TV-yada dowladda ruushka ayaa la arkayaa ciidamada ruushka oo halkaasi gaafareegaya, qaarkoodna dekada wax kala soo degaya, islamarkaana hadda ay si buuxda u maamulayaan dekadaasi. dhinaca kalena wakaalada Interfax oo soo xiganaysa wasaaradda difaaca ruushka, saraakiil sarsare oo ka tirsan waxa ay sheegtay in ciidamada ruushka ee 24kii saac lasoo dhaafay ay soo rideen 6 ka mid a diyaaradaha nooca bayraktar TB2 oo Turkigu farsameeyo, hase ahaatee laga iibiyey dowladda Ukraine, islamarkaana dowladda Ukraine ay dagaaladaasi u adeegsanaysay. waxaa la sheegay in diyaaradahan la soo riday iyaga oo howlgallo wada, waxaana sidoo kale tani qayb ay ka tahay qorshaha dowladda ruushku ay ku doonayso inay isaga leexiso awoodda diyaaradahan oo khasaare ba-an u geystay kolonyadooda, islamarkaana burburiyey gaadiid dagaal oo badan una badan taangiyada casriga ah ee ruushka. inkastoo weli aan si rasmi ah loo xaqiijin karin warkan ka soo baxay ruushka, haddana waxaa la sheegayaa in isbedelada dagaalka maanta ku yimid ay qayb ka tahay ee guulaha ruushka uu sheeganayo ee ah inay soo rideen diyaaradahan. dowladda Turkiga horey waxay u sheegtay iyadu in aysan jirin diyaarado mutadawacnimo ay u geysay waddanka Ukraine, hase ahaatee diyaaradaha hadda Ukraine ay isticmaalayaan ay yihiin kuwii ay horey u iibsadeen, taas oo ka dhigan in dowladda Turkiga ay weli isku dayayso inay dhexdhexaad ka ahaato dagaalada ka soconaya waddanka Ukraine. geesta kalena duqa magaalada Kiev waxa uu ka hadlay madaafiic uu sheegay in ruushku ay ku soo weerareen magaaladaasi 2 guri oo dabaqa oo ku yaala galbeedka caasimadda ayaa waxa uu sheegay in la burburiyey. sidoo kalena wasaaradda difaaca Ingiriiska waxa ay leedahay ruushku waxaa laga yaabaa inuu qorsheynayo inuu isticmaalo hubka kiimikada ama biolojiga, taas oo laga cabsanayo meelaha uu isticmaalayo inay ka mid noqon doonto magaalada caasimadda ee Kiev. geesta kalena haddii aynu egno Mariupolna, la taliyaha duqa Ukraine ee magaaladaasi waxa uu leeyahay tirada dhimashadu waxay gaari kartaa 20,000 oo qof. waxaan aasnay dad badan oo dhintay kuna aasnay fagaarayaasha iyo wadooyinka.
boqolkiiba 80 magaaladu waxa ay noqotay mid aan la degi karin. Ciidamada Ruushkana waxay burburiyeen xarumihii ganacsiga ee raashinada yaalay oo dadka ay ka soo qaadanayeen cuntada. Adeegyada degmadu kama shaqeeyaan magaalada. Biyihii ayaa ugu dambeeyay waa la joojiyay maalmo ka hor. Taasi waxa ay ka dhigan tahay uu sheegayo la taliyaha duqa magaalada Mariupol in saacadaha soo aadan ciidamada Ruushku ay gudaha u gali doonaan magaaladaasi. Mar haddii ciidamada Ukraine aysan haysan saad ay ku dagaalamaan, sidoo kalena dadka rayidka halkaasi gaajo ay ugu jiraan halis inay ugu dhamaadaan, ciidamada Ukrainiyaanku waxay ku qasbayeen inay helaan waddo ay ku baxsadaan oo ay isaga tagaan magaaladaasi. Magaaladan waa istiraatiiji kale oo Ruushku haddii ay gacanta ku dhigaan waxa ay heleen magaalo kale oo aad u weyn. Dhinaca kalena Shiinaha waxa uu wajihi doonaa cawaaqib haddii uu Ruushku ku caawiyo sidii uu uga badbaadi lahaa cunaqabateynta loogu soo rogay weerarka uu Ukraine ku qaaday awgiis, sida ay sheegtay dowladda Mareykanka. Saraakiil Mareykan ah oo aan magacooda la shaacinin ayaa warbaahinta kala duwan u sheegay in Shiinuhu uu muujinayo inuu diyaar u yahay sidii uu u garabsiin lahaa Ruushka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa ku eedeysay Mareykanka in uu fidinayo warar marin habaabin ah. Ruushka ayaa isagana dhankiisa beeniyey in uu kaalmo militari ka codsaday Shiinaha. Hadalladan la isdhaafsaday ayaa yimid ka hor inta aysan kulan yeelanin saraakiil ka kala socday Mareykanka iyo Shiinaha oo isku arkay magaalada Rome ee Talyaaniga. Warbaahinta qaar oo soo xiganayay saraakiil ka tirsan xukuumadda Washington ayaa tabiyey in Ruushku uu maalmihii lasoo dhaafay gudahooda ka codsaday Shiinaha in uu u soo diro qalab militari oo ay ka mid yihiin diyaaradaha aanan duuliyaha saarnayn ee loo yaqaano daroonka. Maalintii Isniinta Mareykanka waxa uu xulafadiisa u sheegay digniin ah in Shiinaha ay muujiyeen in ay u furan yihiin tallaab kasta oo ay garab militari iyo mid dhaqaale ku bixinayaan, sida warbaahintu shaaciyeen. Warkan ayaa yimid xilli uu la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Jake Sullivan kulan la yeelanayay diblomaasiga ugu sarreeya dowladda Shiinaha, kaas oo ay wadahadal ku yeesheen magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. Mr. Sullivan waxa uu soo bandhigay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha, waxa uuna si adag uga hadlay dagaalka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay ee shirka. Waxa ay sidoo kale hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in mar kasta ay wadada u furnaato wadahadallada furan oo dhex mara Mareykanka iyo Shiinaha. Waraysi uu goor sii horeysay Mr. Sullivan siiyey telefishinka CNN-ka ayuu ku sheegay in Mareykanka uu xiriir toos ah oo qarsoon la sameynayay xukuumadda Beijing, isagoo u sheegay in cawaaqib aad u xun oo cunaqabateyn baaxad weyn ah ay ka dhalan doonto haddii ay Shiinaha isku dayaan inay Ruushka ku caawiyaan xaaladda. Ma ogolaan doono in hal wadan xitaa meel kasta oo dunida uga yaalo uu sameeyo wax Ruushka ka badbaadinaya cunaqabateynta dhaqaalaha, ayuu yiri. Waxa uu intaasi ku daray in Mareykanka uu aaminsan yahay in Shiinaha uu ka warqabo in hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin uu qorsheynayo wax un ka hor inta uusan dhicin dagaalka, balse Beijing aysan si buuxda u fahmin heerka uu gaarsiisan yahay waxaasi. Sababtoo ah waxaa aad macquul u ah in Mr. Putin uu been u sheegay iyaga si la mid ah sida uu beenta ugu sheegay Yurub iyo kuwa kaleba, ayuu yiri Mr. Sullivan. Shiinaha oo taasi ka jawaabaya afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Beijing laguna magacaabo Li Jiang ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uu faafinayay warar marin habaabin ah oo uu ku bartilmaameedsanayo Shiinaha oo ku saabsan arrinta Ukraine, isagoo ujeedo guracan kale. Mareykanka waxa uu u muuqdaa in Shiinaha uu ku riixayo markan dagaalka sidii hore u dhacday oo Ruushka iyo Ukraine-ba uu qoorta isugu geliyay ama madaxa isugu geliyay. Haddana waxa uu doonayaa in Shiinuhu uu dagaalka soo geliyo, taas oo ka dhigan Mareykanka in aanu doonin duni xasiloon ee uu doonayo duni iyada oo dhan wada ololaysa. Hase ahaatee ololkaasi kama marnaan doona, oo haddii dunida dhinac ay ka olosho dhinaciisa qabow iyo sidoo kale roob kama da'i doono oo dagaalka waa u saameyn doonaa. Aragtida daawada qaybta hoose inoogu reeb ee komitiga barnaamijkeena xogta dunida wanaagsan. Barnaamijka mid ka xigeentan ku kulmi doono. Nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.